magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya oo muddooyinkii ugu dambeeyayna cawda nabadeed ee ka baxday ay ifisay inta badan dhulyowga ay dadka Soomaaliyeed ku nool yihiin waxa ay soo jiidatay Soomaalida qurbaha ku nool. dadka magaalada Muqdisho muddooyinkii ugu dambeeyay sida weyn ugu soo laabanayay ayaa si weyn ula dhacay hawlaha horumarka leh ee magaalada ka socda. magaalada Muqdisho toddobaadkiiba waxaa si joogto ah maalin kasta ilaa iyo 3 duulimaad ay keenaan qurba joog fara badan oo Soomaaliyeed kuwaas oo dalka dib ugu soo laabanaya. maanta dadka dalka dib ugu soo laabtay waxaa ka mid ahaa abwaanka weyn ee aasaasay kooxda Qayladhaan oo ah koox suuganyahano ama fanaaniin Soomaaliyeed oo ka jira wadamo badan oo Ingiriisku ugu horeeyo kuwaas oo suugaantooda aad loo jecel yahay. abwaan Cabdi Shire Jaamac Yar Jecel waxaa sidoo kale dadka maanta magaalada Muqdisho soo gaadhay oo ay soo jiidatay cawda nabadeed ee ka soo ifaysa magaalada ka mid ah afhayeenka culimaadudiinka Ahlus Sunna wal Jamaaca Mr. Awliyo oo sidoo kale isna ka mid ah halabuurayaasha Soomaaliyeed isla markaana ka mid ah dadka xuquuqda shacabka Soomaaliyeed u ololinayay intii burburka. wariyahayaga Mukhtaar Ismaaciil Oranjo ayaa warbixintan soo socota waxa uu ku eegayaa sida ay dadka qurba joogta ah dalka dib ugu soo laabanayaan. gaar ahaan waxa uu si gaar ah qormada soo socota ugu eegayaa dadka sumcadda leh ee dalka dib ugu soo laabanaya iyo fuuda maanta soo degtay. boqolaal dadweyne ah oo si weyn uga dhex muuqdeen bahda fanka Soomaaliyeed oo ay horkacayeen abwaano Soomaaliyeed oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa saakay xilli hore gaaray garoonka diyaaradaha Aadan Cadde International Airport ee magaalada Muqdisho si ay u soo dhaweeyeen abwaanka caanka Cabdi Shire Yar Jecel iyo Maxamed Xuseen Abuukar Awliyo oo ka mid ah abwaanada Soomaaliyeed muddo fara badan dalka dibadiisa ku noolaa kuwaas oo maanta soo gaaray magaalada Muqdisho. maariyaha tiyaatarka qaranka Soomaaliyeed abwaan Cabdiduux Yuusuf oo ka mid ah abwaanada maanta garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ku soo dhaweeyay abwaanadaasi ayaa sheegay in uu ku faraxsan yahay oo uu muddo sugayay. waxa uu maarayuhu sheegay in bulshada ku nool Muqdisho ay in muddo si wanaagsan ula socdeen suugaanta uu hal abuuray abwaan Ciyaar Jecel. aad baan ugu faraxsanahay maanta inta ku soo dhaweeyo laba abwaan oo qaali ah oo nooga yimid dalka UK waa kuwa hareeraha iga taagan waad maqli jirteen ayagoo ummadda Soomaaliyeed dibadda kala hadlaya laakiin nasiib wanaag maanta waxaad arki doontaan dareenkii ay ka muujin jireen dibadda inay maanta idinla joogaan oo idinkala soo qayb galeen oo naftooda iyo maalkoodaba u hureen inay yimaadaan Muqdisho caasimada Soomaaliya oo ay ummadooda wax la qaybsadaan. mudanayaal abwaan Soomaalidu way sugaysay waxay aad ugu raaxaysan jireen marna ku ooyi jireen suugaantiina iyo dareenka wanaagsan oo aad u muujin jirteen. abwaan Cabdi Shire Yar Jecel oo bahda saxaafadda kula hadlay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay inuu imaado magaalada Muqdisho muddo 24 sano kadib waxa uu tilmaamay in uu ka qayb qaadan doono isu keenida ummadda Soomaaliyeed oo muddo 20 sano ah colaado ay ragaadiyeen. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. awalan waxaan halka ka salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogtay xaalad kasta ay ku sugan tahay. marka xiga waxaan u mahad celinayaa dadka faraha badan magacaana ku soo koobi karin ee mas'uuliyadda qaranka ku jiraan dhalinyaro fanaaniin saaxiibo sida wanaagsan noogu soo dhaweeyay magaalada Muqdisho ayaan u mahad celinayaa. inta markaan ka gudbo waxa laga yaabaa dadku inay leeyihiin maxaa Cabdi Shire iyo Awliyo maxaa keenay dalkan Soomaaliya. Awliyo isaga ka hadli doona adigu laakiin aniga sida la socotaan dalka waxaan moogaa 24 sano 1988 ayaan ka tagay airportkan ka duulay anigoo raacay diyaaradda Somali Airlines. waad garan karaysaa
24 sano nin dalkiisa ka maqan marka waxa ay keenay arrinta ugu horeysa waa hilow aan dalkayga hooyo u qabo inaan micnaha maruna indhaha ka qaado ilaahayna waa ii suurtageliyay qodob labaad oo muhiim ah oo isleeyahay waa sabab isna waxa weeye sida la socotaan dalka waxa ka jira dhaqdhaqaaq siyaasadeed kala guur barnaamij la yiraahdo anigu waxaan idhaahdaa kala guurka kelmadda ha lagu bedelo isbedel maxaa yeelay dad kala guuray hadda waad garan karaysaa si la isku soo celiyo waad kaanaysaa marka barnaamijka isaga oo isbedelka inaan ayana ka qayb qaadano intii karaanka aanu ka qayb qaadano ayana midnaha qorshaheena ugu jirtaa abwaan owliyo ayaa isna dareenkiisa imaanshaha magaalada muqdisho ku cabiraya suugaan uu ka diyaariyay xaaladda dalka nin muwaadinaan ahay muddo kaa maqnaayo sidii igarmaqaarey muxubbadu ku raagtoo lagu maalay toobto muusanaabayaan ahay muqdisho ima nabadba waxaa tahay magaaladii lagu wada midoobe maandeeq xorriyaddii meeshii lagu yagleele muuqaalka quruxdaee moolo uu ku siiyaan marna kugu hilmaamayn maxaan xiise kuu qabay muqdisho ima nabadba danjiraha maqnaa iyo nin mujaahidaan ahay maxaa maalin barafdahay anigoon mas-uul ahayn london oo mug weyno adduunyada u magac dheer maxaan madaxda reer yurub miiskaan u garaaco siyaasadda mutaxanay nagu maamulayaan mowqif adag ka qaato maslaxada dalkaygiyo ku midtiday midii xaqa maxaan muruga iyo caro yurub kula maqnaayo maankaygu xamarey adig kugu mashquulo murugo iyo ciil badan ku martiya shisheeyo aan ahaa mid liitiyo masaakiin qaxootiya wooloor maquustaa mooryaan wax dila iyo madaxduubta jaamba iga kaa mamnuuce maalinkaama dhoofeen maxaan xiise kuu qabay muqdisho ima nabadba badda moolka weyn iyo xeeb lagu mushaaxiyo ciid midab casaan iyo muufadiyo baroodada mooskiyo saliidiyo maxsaradan ku daran jiray muddo aan u jeele muqdisho ima nabadba sidoo kale abwaan cismaan cabdulaahi guure ayaa isna goobtaasi ka tiriyey suugaan uu ku soo dhaweynayo abwaanada maanta soo gaaray magaalada muqdisho waxaan ku gaabsanaynaa maanta ciidda Soomaaliyeedna waa ay joogaan calankii Soomaaliyana waa ay huwan yihiin marka waxaan leenahay waxaan mawla ku qorin muran iyo dagaal iyo meehana u qabiil iyo madfac lagu meelayo Allah bixiyo maamuus maqaamka iyo sharafka iyo magac iyo awooduna mulki ee baweeyo Allah maamulka iska leh marka maqaam iyo sharaf Ilaahay siiyay ayaad maanta ku soo dhaweydeen ma wada baabi'i doono baaqi baa hari doona intii naga badbaadana berri way xisaabtamay cid kasta oo ummadeena wax u gasha waa ku xisaabtamaynaa waana ku sharfaynaa waana ku soo dhaweeynaa waana ku garab taaganahay imaanshiyaha abwaanadani Soomaaliyeed ayaa ku soo aadaya iyadoo xilligan isbedel la taaban karo uu ka muuqdo magaalada Muqdisho isla markaana ay ku soo qulqulayaan dalka siyaasiyiin aqoon-yahano iyo dad kala duwan oo muddo ka badan 20 sano dalka dibadiisa qaxooti ahaan ugu noolaa إسماعيل مختار عمر تلفزيون كقرن كالصوماليات مقدشو.